Dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray sanadihii 1970-aadkii wuxuu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee ka dhex dhaca laba dowladood oo Afrikaan ah. Iyadoo saameyntiisu ay gaartay meelo badan oo caalamka ah, dowladihii Midowga Sofiyeetka iyo xulafadii Warsaw, Cuba iyo dowladihii Shuuciga ahaa waxa ay si toos ah uga dagaalamayeen safka hore ee dagaalka. Dagaalka ayaa waxa ay Soomaalidu ku qabsatay dhul aad u fara badan, hase yeeshee markii ay ciidamada Soomaalidu guulo waaweyn gaareen ayaa waxaa dagaalkaas si toos ah u galay ciidamadii Midowga Sofiyeetka, Yemen, Cuba, Liibiya iyo kuwo kale. Dowladii Midowga Sofiyeetka oo Soomaalidu xiriirka u jartay bartamihii November 77 oo laga saaray Soomaaliya ayaa waxa ay si toos ah uga soo jeesteen dhinaca Itoobiya. Waxay siiyeen Itoobiya wax kasta oo lagu jebin karo ciidamada Soomaalida, dhaqaale, military, siyaasad iyo xiriirka caalamkaba ah. Isla markiiba waxay Sofiyeetku u soo rareen Itoobiya diyaaradaha dagaalka ee MiG-17, MiG-21, taangiyada T-54 iyo T-55, helikobtaro waaweyn oo nooca xamuulka ah, baabuurta waaweyn, noocyada gantaalada BM-21, gantaalada ka hortaga taangiyada iyo hub noocyadiisu kala duwan yahay oo aad u fara badan, taasoo lagu qiyaasay adduun gaaraya balaayiin dollar. Ciidamadii Soomaaliyeed oo Sofiyeetku soo tababaray siiyeyna hubka ay ku dagaalamayeen intiisa badan, isla markaana yaqaanay awoodda iyo qaab dagaaleedkooda, wuxuu si toos ah uga howlgalay burburintooda. Saraakiishii usbuucyo ka hor joogay dhinaca Soomaalida ee Sofiyeetka ahaa waxa ay ka soo jeesteen dhinaca Itoobiya, sida General Grigori Barisow. Dhinaca kale waxaa dagaalka soo galay ciidamo Kuubaan oo gaaraya in ka badan 20,000 oo uu hogaaminayay General Arnaldo Ogia, ayna u dhan yihiin dhammaan hubka iyo saanada ciidamadu, iyagoo ah awood aad u hubaysan. Waxay noqotay in Itoobiya ay hesho awood ciidan oo aad uga fara badan intii ay ka codsatay saaxiibadeed, halka Soomaalidu ay noqotay keligood. Dhinaca kale, maadaama ciidamada Soomaalidu ay gudaha u sii galeen Itoobiya, waxa ay dadweynaha halkaas ku nool noqdeen kuwo aan u soo dhoweyn sidii dadweynihii ay soo marayeen markii ay qaybsanayeen dhulal badan oo Soomaali galbeed ah, iyadoo ciidanka Soomaaliduna uu sii galay dhul buuro dhaadheer leh oo ku noqday caqabad. Kadib ciidamadii isbahaysigu waxay xoojiyeen weeraradoodii bilihii Diseembar, Janaayo iyo Febraayo. Ugu dambeyntii ciidamadii Soomaaliya waxay noqdeen kuwo la go'doomiyey oo xitaa diyaaradaha huwantu garaacaan xadka gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed. Markii ciidamadii Soomaaliyeed muujiyeen dagaal aad u xirfadaysan ayay ciidamadii huwantu waxay go'aansadeen in la sameeyo istiraatiijiyad cusub oo lagu jabiyo. Laga bilaabo Febraayo, ciidamadii huwantu waxay si xad dhaaf ah u soo weerareen ciidamadii Soomaalida, iyagoo dhinac walba haystay wixii ay u baahdeen. Halka ciidamada Soomaalidu ay ka muuqatay daal fara badan, saadkii oo kasii gabaabsi noqday iyo iyagoo aad ugu sii fogaaday furintii dagaalka. Waxaa intaasi dheeraa iyadoo isbahaysigii huwantu ay dhinaca xiriirka caalamka uga dheereeyeen dowladii Soomaaliyeed, una tuseen caalamka dowlad gardarro ku qabsatay Itoobiya. Dowlado yar maahane inta kale waxay si toos ah iyo si dadbanba u taageerayeen Itoobiya. Dagaalku wuxuu si toos ah u dhex maray ciidamada Cuba iyo Ruushka oo dhinaca iyo ciidamada Soomaalida. Waxay ku soo daabuleen ciidamo iyo hub diyaarado waaweyn oo Sofiyeetku qaada hubka waaweyn iyo ciidamada, waxayna ku daadiyeen ciidamo wax walba u dhan yihiin gadaasha dambe ee dhabarka ciidamada Soomaaliyeed. Ciidamadii Soomaaliyeed ee jigjiga difaacayay waxay muujiyeen geesinimo xad dhaaf ah, iyagoo aan haysan wax saad u imanayay, go'doonna laga dhigay, lagana hubiyo ciidan badnaa. Ciidamadii Soomaaliya ee gudaha Itoobiya ku jiray waxay ku qasbanaadeen inay dib uga soo baxaan dhammaan goobihii ay qabsadeen, gaar ahaan jigjiga oo ahayd halkii dagaalku ugu qaraaraa. Waxa la isku raacay in haddii aysan sidaas yeelin la hareerayn lahaa, lana xasuuqi lahaa.